بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته غيرتو السلام يا ملك كستو جوجتان سو دوادا وصاحبكي عبد الحكيم ماستر كود لا وقتي جوجا هذه وعناده فضلا muuqaalkan hadii uu soo gaaro share iyo like inta ku qaba wax lacag ma aha share iyo like ta waa iska free way adiga wax lacag ma ahan iska qaba adiga un kaliya bas inta kaliya ha laga helo hadii aad page-ka aad ku cusub tahay page-ka follow dhaho sidoo kale inta soo dhawaada asxaabay waayahay shalay جمعيه مدحوينها جمهورية فدرالك الصومالية حسن الشيخ محمود أيام مساجد خطبة كتشيريي خطبة داس وحكاها هالله ميلا بدن يعني سياسة الدالك خاصة وحكاها هالله معمل قبلات كان بنتلان أو شيء بنتلان إن أي مدة أولي 20 سنة 24 سنة أي سنة هاي ما أنتنا يصوب بهنن بنتلان إن قدر له عليا بس يصوب بهنتها بنتلان إن هرلاسي وضو كمان دردارمي بودلان وحي هوس ودغيا ama gadaal u celinayo in ay dadka shacabka reer Puntland ay yani meel ugu soo wada jeestaan hadalkaas ayaa marka waxa ka daba qaatay maamulkii Puntland oo yani hadalkii jawaab ka bixinayo waxa weeye koleetaba waxay ku tilmaameen madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya inuu yahay nin xanuunsan hadda waa nin xanuunsan inuu yahay ayay sheegeen dawladda Puntland ayay sheegtay maamulka Puntland waayahay horta madaxweynaha ma xanuusna madaxweynaha Xasan Sheikh nin xanuunsan ma waa nin caafimaad qaba waana nin maanta yani dalka Soomaaliya hogaaminaya waxa weeye kolay taba tala iyo tusaalo waa la isku leeyahay horta maadaama asagii oo wadanka ee maamul goboleedka ay ka jiraan asagana uu yahay madaxweynihii federaalka Soomaaliya maamul goboleedyada ay yihiin kuwa dawladda federaalka hoos yimaada hadii maamul oo arka inuu qaldan yahay ama si qaldan wax loo wada hadii uu arko inuu tala iyo tusaale siya xaq buu u leeyahay madaxweynuhu xaq ayuu u leeyahay taas marka waxa weeye Puntland koleetaba waxa weeye sidii u hadashaan koleetaba waad aragteen si yani madaxweyne loola hadla ma ahan xaqiiqatan waa sidii aniga ila taariikhtiisa dad badan oo taariikhtaas qabo jiraan dadkii dad aragtaa yani aragti ka duwan qabanna way jiraan qofka fikirkiisana qofka lagu manacaba Soomaalida maanta waxa weeye war sidee u hadashay ayaa lagu qabsanayaa sidee u hadashay war qofka waa xor fikirkiisu ka hadli karaa waxa weeye marka waxaan dhihi lahay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Xasan Sheikh koleetaba waxa weeye waa nin maanta u taagan astaantii qarannimo ee dalka Soomaaliya ayuu u taagan yahay maamul goboleed oo yani tala siiyay ama doldoleeladiis intuu arkay wax ka yiri inta laga daba qaataa ma aha oo sidaa la yiraahdo waxa arkaya xataa rag kale intuu baraha bulshada ku jiro wacaynayo oo xataa madaxweynaha uga fayo oo dhahayo waa baalkii waa munaafiq sida kabtan ayuub oo kale munaafiq ayuu ku sheegay waxa weeye marka arintaas marka koleetaba waxa weeye ummadda Soomaaliyeedna way arkeen waxaan leenahay koleetaba arinkaasi koleetaba ma haboono in yani madaxweynaha hadii uu tala soo jeediyo la xagto madaxweynuhu waxa weeye asaga koleetaba dalkan asaga ka mas'uul asana wax laga weydiinaya shar adinka u doortay Puntland shalay adinka codka ugu shubay Siciid Dani iyo xildhibaanadii reer Puntland ayaa ugu shubay ninkiyado maanta ninkiyado Xasan Sheikh maanta la dhaleeceysaan maaha adigoo farmaajo ka soo cararayo ayaa Xasan ugu shubteen oo siiseen sidaas oo Xasan ku soo baxay marka maanta ila dhaleeceysaan waa laga fiican yahay madaxweynaha hal la xusmeeyo madaxweynuhu wuxuu u baahan yahay maanta dalka wuxuu ku jiraa dagaal buu ku jiraa maalin kastana hadii wax la dhaleeceeyo waxba ka soo bixmayaan madaxda ki yimaadaabo war hadii la eedeeyo Soomaaliya xagee rabtaan xagee loo socdaa ilma adeerayaal xagee loo socdaa war madaxweynuhu wuu qaldami karaa wuu qaldami karaa hadduu qaldamo yaa intaan meediyaha la imaan la qeyrine war madaxweyne saan arinta ma ahanay bal sidaan bal yaa halkaan ku qurux badneede baraka baash u weeci in la yiraahdo ku habooneed laakiin hadii madaxweynaha laga daba qaato oo la yiraahdo waa munaafiq oo la yiraahdo waa nin xanuunsan waa nin noocaas hadii la yiraahdo ilma adeerayaal de waxa weeye kii yimaadaaba waa la dhaleeceynaya Soomaali dhaqan waxay u leedahay madaxda dalka marka yani hogaaminayso in la wada dhaleeceeyo laga soo wada horjeesto war qofka waa bini aadan wuu qaldami karaa malaa'ig ma aha Soomaalidan garan waxyinu kuma soo dagayo marka waxa la rabaa in madaxda marka la toosiya loo baahan yahay
oo yacni dowladnimada la fiiriyo wanaagga la fiiriyo dalka inuu hore u socdo laga shaqeeyo laakiin haddii madaxweynihii la dhaleeceeyo oo lagu dhego oo la caayo oo la jaa'ifeeyo maxaa ka soo baxaya Soomaaliya wax ka soo baxaya malaha wax ka soo baxayo xaqiiqatan ma jirto khudbadii marka madaxweynaha Xasan Sheikh waxaa ka mid ahayd shalay wuxuu yiri 60 jir ayaan uhu yiri 60 jirne 60 kale uma harsano uma laabno يعني قفك هدي لحظة سنة أو جارو لحظة كلاسي شوقي ما ها المغائب وكتيرا وحي ورا واحد سكير صماها مركب وحويري ما أنت مركب أنا أقول لحظة تشيران أهويري وح إيجا مقولوا أنا رادينه يا حبايبي راتي ما تشرتوي قف بني آدنا ماشي أو جارو قف بني آدنا هالكي أو جاري لهينه oo ugu sareysana waa gaaro yiri oo madaxweynaha noqday oo laba jeer aan noqdo wili xataa hore uma dhicin Soomaaliya kama dhicin nin laba jeer madaxweyne ku soo laabto yani ama qabtay xilka kama aysan dhicin oo yiri waxa aan raadinayaa waxa weeyaan oo yiri dawlad inuu dalkani helo dawlad wax kale iga maqan markuu jiro oo yiri Xasan Sheikh waxa weeye marka qalbigiisa wixii ku jiro horta Ilaah baa daalacanayo anaga ma daalacan kana laakiin maxaan fiirinaa liisaankiisa carabkiisa fiirinaa wixii ka soo baxa carabkiisa ayaan anaga fiirinaynaa hadalkaas ayaan wax ka dhihi karnaa laakiin qofka bini aadanka wixii qalbigiisa ku jiro qulubtiisa ku jiro de Ilaah baa daalacan karo taa anaga ma daalacan karno laakiin Xasan Sheikh wuxuu sheegay afkiisana aan ka aragnay inuu maanta yani wax ka maqan oo raadinayo oo u dhiman inaysan jirin oo waxa kaliya oo raadinaya ay tahay Soomaaliya dawladnimadeedu cagaheeda ku istaagto Soomaaliya u soo laabato haybadeedii wanaageedii dawladnimadeedii qarannimadeedii awoodeedii sharafkeedii u soo laabto oo kaliya ayaa raadinaya uu Xasan Sheikh war waxa dhiilay marka Soomaaliya warnaa odayga hal garab istaago warnaa adeer maalin kasta caasin iyo lagu jiri karo iyo caay iyo lagu jiri karo madaxweyne laga hor yimaado lagu jiri kare warnaa adeer Real madaxweynaha hal garab istaago Soomaaliya maanta dagaal buu ku jiraaye aan wuxuu yahay aan ku qaadano wuxuu yahay hal lagu qaato sharadi adinka keenay sharadi adinka soo cisho Soomaa Xasan wuxuu ahayba waa la yaqiinay 5 sano hore la soo arkay حسن عصب ما حسن وحسن كي هراء أدين كان سوء هذا برماه دي آتين ما أنت مركب طلع أنت أن كدينه ورنيكا هدو وحقلو عينا هلا يرادو ماشي باشك قلو عتي أنت بس نعم أتوسي هلا يرادو على قرب استاجو هلا قرب قلان تاجنا أنو ما ها إن لا طلع عيو ولا صور جيستو أو جاي فيو أو وحلا الشيء أو صام اللي يرادو باشك كم قروح بدنا وحين أوفي عنين تاسنة دولة نمدس أوفي عنين haddii mar kastaaba yaa sanad kasta ka yimaadaabo haddii la dhaleecaynayo wax ka soo baxaya dalkani ma jiro dalkani wuxuu rabaa in la isku sabro la isku dul qaato baasha dawladnimada la yiraahdana hore loo dhaqaajiyo hore loo waday u baahan tahay in la iscaayo la jaa'ifeeyo madaxda la dhaleeceeyo waa laga fiican yahay marka waxaan dhihi lahaa reer Puntland xishooda madaxweynahan waa madaxweynihiin waana madaxweynihii ummadda Soomaaliyeed Soomaalidan garan marka baasha waxay ku qurux badan tahay madaxweynaha kulli tabo haddii uu qaldan yahay qaladkiisa loo sheego waa yiri asaga bini aadan ma iyo wax uu soo dago waa qaldami karaa waxna waa li sheegi karaa waana idinka dhigaysan karaa uu yiri Soomaha laakiin in maada Realo dhaleecaynta intii iska dayo war madaxweyne haddii uu qaldan yahay war madaxweyne arrinkaas aad ku qaldan tahay hal la yiraahdo baashu waxa weeye halkaas ay ku wanaagsan tahay laakiin haddii baashi madaxweynihii la caynayo la aflagaadeeyo wixii raba laga sheegayo de maxaa ka soo baxaya meesha waxa ka soo baxaya mare marka waxaan leeyahay Soomaali waxaan u sheegi lahay war dawladnimadan xunta oo tabarta daran oo ku feeso dhacayso u jeedaan war difaacda oo ilaashada oo madaxdiina yani maanta oo amrigeedii ka dambeeya oo warkooda qaata oo dhageysta ani markaas aan leeyahay Xasan Sheikh ma taageersan gooni uma taageersan waa la ogyahay cid kastaano waa itaqaana anu Xasan ma taageersani dadka taageersanna kuma jir laakiin waxaan diidanahay in de maalin kasto madaxdii lagu dhaganaado la caayo la aflagaadeeyo taasaan diidanahay aniga Xasanna kulay taba maanta waa u jeednaayo dalkii asaga maanta hayo asaa xukunkii maanta ku fadhiyo wuxuu biiyo iyo wuxuu yani wanaajiyaabo waa wax asaga anfacayo birito waa wax biri asaga anfacayo taariikhdu waxa weeye iyada isqorto lama qoro iyada ayaa isqorto taariikhda Xasan wuxuu ka tagaa la arkaya Xasan maadaama oo mar rabaad soo laabtay de wuxuu ka taga ayaa la arkayaaye war Soomaaliya baasha maanta waxay u baahan tahay celcelis u baahan tahay
celcelis ayay u baahan tahay xaqiiqatan ma aha marka in baashi weerar xagga loo soo qaado maamul goboleedyadii maalinba mid oo yacni ya seefta gasha kala baxa ma aha waxaan dhihi lahay maamul goboleedyow waxaad tihiin maamul goboleedyo dowladda federaalka hoos tago ayadaas ka dambeeya inkastoo aan ogahay inaydaan warka qaadeen dowladnimadeed oo dowladda aydaan warka qaadeen waa ogahay dowladda dhexa aad iskala weyn tihiine laakiin waxaad tihiin maamul goboleedyo ayaa tihiine taa ogaada maamul goboleedna waa la yaqaanaa maamul goboleed waxa hayo oo majaraha u hayo oo yacni hoggaanka u hayo waa dowladda dhexe war dowladda dhexe ilma adeerayaalow dee bahasha ha laga wada shaqeeyo inay dowladnimada hagaagto oo ay socoto akhyaari marka waxaan leeyahay intaasaan kusoo koobayaa madaxweynahana waxaan leeyahay ha lala shaqeeyo maanta cid inoo bedelaysa male hadduu xun yahay iyo hadduusan yahay afartiisa sano wuu joogayaa wuuna dhammaysanayaa cid inoo bedelaysana male balse xumaanta intaan iska dhaafno dhanka wanaagga baasha ha laga fiiriyo oo madaxweynaha si wanaaga ha lagula shaqeeyo waa salaamaya dhammaantiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu